Turkiga ayaa ku dhawaaqay heshiis u ogolaanaya Ukraine inay dib u soo celiso dhoofinta qamadiga iyo galleyda ee badda Madow. Jimcihii ayaa Istanbul waxaa ku saxiixay heshiiskaasi Ukraine, Ruushka, Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Qiimaha sarreenka suuqyada caalamka ayaa hoos u dhacay tan ilaa markii bishii February uu Ruushka ku duulay Ukraine. Labada dal ayaa Jimcihii kala saxiixday heshiis dib loogu bilaabayo dhoofinta qamadiga ee dekedda badda Madow. Cuniyarida soo food saartay caalamka ayaa loo aaneeyay dagaalka uu Ruushka ku qaaday Ukraine 24 bishii February ee sanadkan. Heshiiska ayaa dhigaya in Ukraine maraakiibta ay ku hagto goobaha aan miinooyinka lahayn si badqab ay ugu safraan. Waxaa arrintan gacan weyn ka geystay dowladda Turkiga oo garwadeen ka ahayd heshiiskan ay gaareen labada waddan. Qaramada Midoobay ayaa heshiiskan ku tilmaantay mid wax ku ool ah dalagga beeraha, gaar ahaan qamadiga oo si weyn loogu baahan yahay guud ahaan caalamka, ayaa ku xaniban maqaasino ku yaala dekedda Odessa ee dalka Ukraine. Ku dhawaad 20 milyan oo tan ayaa lagu qiyaasay qamadiga ku xaniban dekeddaasi. Ukraine ayaa ka mid ah dalalka hormuudka ka ah soo saaridda qamadiga, balse godoominta ciidamada badda Ruushka ayaa curyaamiyay dhoofinta loo dhoofin jiray caalamka ee shixnadahaasi. Diblomaasiyiintu waxay sheegayaan sida uu dhigaya heshiiska Ruushka inuu aqbali doono xabad joojin inta shixnadaha gudbayaan oo sii marayaan marinada badda Ruushka uu joogo. Turkiga ayaa dhexdhexaadin ka ahayd heshiiskan ayaa xiriirin doonta wax walba oo looga baahan yahay heshiiskani. Mareykanka ayaa mabda ahaan soo dhaweeyay heshiiska, balse waxa uu sheegay in Moscow lagula xisaabtami doono dhaqangalkiisa. Heshiiska oo qaatay 2 bilood in halkan uu soo gaaro ayaa lagu wadaa in uu socdo muddo 120 maalmood, iyadoo isku dubridda iyo dabagalka lagu sameyn doono Istanbul ay ka shaqeyn doonaan saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobay, Turkiga, Ruushka iyo Ukraine.